Guddida joogtada ee Golaha Wakiilada Somaliland ayaa maanta u yeeray Gudomiyaha Hayada Shaqalaha Dawlada si ay wax uga weydiiyaan hawlaha shaqo ee Hayada Shaqalaha Dawlada. Ugu horreyntii waxa warfidiyeenka uga warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen Gudomiyaha Guddida joogtada AXMEDNUUR waxaana kamid ah hadaladiisii halkan hay'ado badan oo dawladeed baan ugu yeernaa nasiib wanaag maanta waxaan nala jooga Hayada Shaqalaha oo dawladda oo hay'ad muhiim ah gudoomiyaheedii iyo madaxdeedii kale saraakiisheedii kale waa nala joogaan sida dhaqanku ah waxaan ka wareysanay xaaladda shaqaalaha haday tahay nidaamyadooda haday tahay daryeelkooda haday tahay xuquuqahooda runtii warbixin shilis bay naga siiyeen ku talagalkooda iyo istiraatiijiyadooda iyo qaabka ay doonayaan in shaqaalaha u dhisaan xaddiga shaqaalaha duruufaha jira waxyaalahaas oo dhan bay ka warbixiyeen sida ay ahayd dhaqankuna xildhibaanaduna ama mudanayaashuna su'aalo fara badan bay ka weydiiyeen halka markaan madaxda dawladda kula kulmayno waa iska goob shaqo ma press conference runtii geesta kale isaguna waxa ka warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen iyo halka ay marayaan hawlaha shaqo ee Hay'adda Shaqalaha Dawladda Gudomiyaha Hay'adda Shaqalaha Dawladda Mudane Farxaan Aadan Haybe Guddida joogtada ee Golaha Wakiilada Gudomiyahoodana aad baan ugu hambalyeynaya inay yeermada noo yeereen iyo sida wanaagsan ee sharafta leh ee soo wareysanay waxaan uga waranay hawlaha Hay'adda Shaqalaha Dawladda wado oo HR-kii qaranka iyo waxyaalaha qorshayaasha ay tamaniyayso inay wax ka qabato iyo sidii doonayso inay u tayeyso shaqaalaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland aad baan isu wareysanay waxaanu iska wareysanay qaab dhismeeyada wasaaradaha aanu sameynayno siyaasadaha aanu ansixinay iyo ku talagalkayga soo socda ee aanu doonayno inaanu ku kala saaro darajada shaqaalaha dawladda oo la doonayo inaanu idana kala saaro iyo xeerka shaqaalaha oo dhawaan baarlamaanka iman doona insha Allah oo wali golaha wasiirada aanu soo gudbin laakiin aanu geynayno oo aanu doonayno isaguna inuu sida ugu dhaqsaha badan oo hirgalo hawlahaas oo dhan waxa looga jeedaa in la tayeeyo adeegga bulshada la siiyo iyo in shaqaalaheedu noqdaan qaar haran kara shaqada qaranku aynu doonayno iyo horumarkeenu doonayno qaar gaarsiin karaya geesta kale mar wax laga weydiiyay Gudomiyaha Hay'adda Shaqalaha Dawladda shaqaale maalmihii u dambeeyay laga cayriyay kamid ahaanshaha shaqaalaha dawladda ayaa ku jawaabay sida tan horta shaqaaluhu waxay ku shaqaaloobaan markay payroll-ka galaan heshiiska u dhaxeeya qofka shaqaalaha heshiis baa la galaa heshiiska nidaamka xeerka shaqaaluhu sheegay markuu qofku payroll-ka uu galo wuxuu kamid yahay xuquuqaadkii shaqaalaha dawladda ayuu wax ku yeelanaya haddaanu ku jirin ama kumeel gaar ha noqdo ama consultant hay'adii u keentay wasaaradda iyo hay'ad ha noqdo ama ha noqdo qof kale oo si kale loo soo shaqada loo keenay xuquuqaadkii oo dhan uu ka madax bannaanaanaya taa macnaheedu waxa weeye shaqaalahaasi markan wasiirka hana waa joogeen shaqaale UN staff bay haayeen UN ta u shaqeeya hay'adda UN ay ka wala yiraahdo u shaqeeya iyagaana xuquuqdoodii ku leeyihiin shakhsi ahaan muwaadin ahaan ma liidayno mana fogeynayno laakiin marka xuquuqaadka shaqada ka dhalanaya laga hadlayo kama mid aha shaqaalaha payroll-ka ku jira dawladda xuquuqdooda waxay ku leeyahay hay'adda shaqaalaha dabcan su'aal kale ku xidhay baa jirto waxyaalaha maxaa loo wareejin waayay iyo maxaa sidan loo oran waayay taasi waxay la xidhiidhaa hay'adda duulista waxa weeye nidaamka la jideeyay shaqo qaran waxa weeye markuu muddada shaqo qaran soo dhameysto ayuu ka mid noqonayaa inuu xaq u yeesho inuu payroll-ka galo waana loo ballan qaaday intii ku guuleysatay sanadka dhamaadkiisana waxay ku soo wareegayaan payroll-ka inay shaqaale dawladeed rasmi ah noqdaan iyagoo mushaharkoodii marka intii badneed ba helaya oo 75% darajada ee ku hela 100% bay ku helayaan markay payroll-ka soo galaan qorshuhuna waa sida kuwa soo socdana waana istiraatiijiyad fiican waana sida madaxweynuhu inoo qorsheeyay shaqo qaran marka ilaa hadda payroll-ka may soo gelin waxay gelayaan iyadoo loo ansixiyay inay ka mid noqonayaan shaqaale dawladda rasmi tahay oo aan ku cadeynaya taa marka ay payroll-ka ku soo wareegaan marka taa waxaad weydiin doontaa sharciyan sharciga anagu waxaanu raacnaa sharciga shaqaalaha dawladda aan dhameeyo sharciga shaqaalaha dawladda aanu raacnaa AXMEDNUUR ciise telefishinka bulsho Hargeysa